واحد منهم يا رسول الله. مسجد الأقصى qibladii hore ee muslimiinta isla markaasna xaramkii saddexaad ee muslimiinta halkii laga dheelmiyay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee shaki kuma jiro inuu yahay masjid qiimo weyn ee muslimiinta caalamka meel kasta ay joogaan. halkanina waa masjidka Al-Rawda ee magaalada Boosaaso. waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayo isla markaasna loogu hiilinayo shacabka muslimiinta ah ee reer Falastiin kuwaas oo duulaan ku yihiin Yuhuuddu kaasi oo soo qaban qaabisay mu'asasada Al-Minhaj. Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur iyo Sheikh Faarax Maxamed Cajab ayaa si wada jir ah muxaadaro ugu jeediyay goobta iyagoo ka sheekeeyay ahmiyadda ugu fadhiyo masjidka barakaysan ee Al-Aqsa muslimiinta caalamka iyo taageerada shacabka reer Falastiin. waxay ka shaqaysay maadaama xisaar la geliyay maadaama hubkii iyo aslixadii la soo tahriibin jiray oo badda iyo anfaaqda la soo marin jiray la hor istaagay inay markaa iyagu tatwiiriyaan oo sameeyaan sawaariikhdii ay sameeyeen waxay ku soo kordhiyeen sida iyaguba gaaladu ay qireen oo aan sheegi doono waxay ku soo kordhiyeen sawaariikh tiiro dheer leh oo gaaraya ilaa 160 kiiloomitir qaybtood taasoo macnaheedu yahay boos kasta ama buqca kasta oo kamida yuhuudi degan tahay inay duqayn karaan. waxay soo kordhiyeen kamiyada sawaariikhda ee la tuurayo ay aad iyo aad u badiyeen. waxay soo kordhiyeen sida iyaguba qireen in ay GPS ku hagaan sawaariikhda oo aan la iska tuurina meelo loogu talagalay ay ku dhacaan. waxay soo kordhiyeen inay madaxyo culus oo shubka reinforced concrete ama shubkan al-kharasana al-musallaha ah ka soo dusaysa ayay ku xireen. taas marka waxay keentay in kastoo aan weli hubka lagu dagaalamayo dhaqaalaha ciidanka iyo cataadku uusan isu dhigmin haddana waxa soo kordhay wax aad iyo aad u weyn. sidaa daraaddeed waxay dhaheen amaliyada sawaariikhda oo halkaas maxaan ku leeyahay isticmaaleen Falastiiniyiinta oo waliba Xamaas ay hormuudka u yihiin waxay keeneen in ay Xamaas awood u yeelato inay dagaalka maamulkiisa iyadu xukunto. sida ninka la yiraahdo Alex Fishman oo ah muxallil taxliiliya ama dhiriya arrimaha ciidanka oo jariidada la yiraahdo Yadiicod Ahronot oo iska leeyihiin nimanka la dhaho Yuhuuda u taxliiliya wuxuu yiri Xamaas waxay ku guuleysatay inay sawaariikhda iyo dagaalka ay ku jirto daraadiis inay gacanta ku dhigto iyadoo ay maamusho safka Falastiiniyiinta. مسجد الأقصى أيين وحير كشيغينا ودهان واحد أكتهين دول كان شام ليرادو ودول بركيسن وقرآن كنا وميرد بدن كجهد لي نبي جينا صلى الله عليه وآله وسلم حديث كصحيحة ودعائي اللهم بارك في شامنا وفي يمننا أي النبي حديث صحيحة كيري صحابتي لجوكتي قار كميدا وحي يرادين وفي نجدنا نبي كعل علي اللهم بارك في شامنا وفي يمننا لكن وكديدي نجد إنه كدره وحونا يري ماشاس في التنتا هي الشياطين تأياكم بدن سيدا درتيد وادول بركيسم دول كاسي مسجد أهان مسجد الأقصى سيدي حديث صحيح والنبي أن كسبنا صلى الله عليه وآله وسلم أسقنا ومساجد يوجه الرئي يدوك الله قد الصي النبي قال له ويديي إلا آيات القرآن كواتنا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة مركي له ويديي النبي صلى الله عليه وسلم يا كحيي وحيي مسجد الأقصى وحان الله نسيبه يرى 40 سنة حديث صحيحة وإمام أبي ذر أوريي
أفرتن سنة بيت الحرام ككدب أي مسجد الأقصى لدسي مسجد كاس يدل كاس وحي أهايين حرمه رسوش إلهي انتوض بدن رسوش إلهي انتوض بدن أيقا وحي أهايين حرم وحي لقصوا بلاب النبي الله إبراهيم عليه السلام نبي الله إسحاق يعقوب يوسف لوط داود سليمان زكريا يحيى عليهم السلام عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه عليهم أيضا حرم أهيد ماشاس أي حرم أهيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كآياتها انت بدن لغو حصه لغا هادلا أرض المقدسة أيضا لو جيدا بيراد المفسرين انتو بدن آياتها سؤال لسوكو بكريم إلهي تبارك وتعالى قرآن كوحو كيره يا أسوأ الله اللي نبي الله موسى الله اللي أمديسي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أرض المقدسة داس وإلهي أكور رمي هي أرض المباركة قدس هي أرض الشام وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وهي نفسها ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها وحاصلنا وحلو جيدا باليري مركز مقدس بيت المقدس وما حولها إن تنصروا الله ينصركم وكع shacabka Soomaaliyeed ee ku nool geeska Afrika isla markaana shacab muslimiin ah waxay ku taageeri karaan walaalahooda reer Falastiin ee duulaanka lagu yahay waxa sharaxaya Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur ma taqaana wuxuu yahay waa aan Suuriya jaamacad ka dhiganayay baa oday Soomaaliya oo iskaal caama ah meel jaaliyadu lahayd baa waayada TV-yada way iska yaraayeen meesha shaashaha laga cabi jiray oo TV-yada iyo lagu daawan jiray marka waxaa socday dagaal u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda Falastiiniyiintu marka dhagax bay tuurayaan marka odaygu wuxuu leeyahay war nimanka Yuhuudda waa gartood Ilaahay bal ku jar subax walba nin dhagax lagu la soo kalaayo maxaa lagu dirirayaa yaa gar daran shuqulkiisba ma maxay la qadiyada oo ma yaqaan waxay tahay qaar waxaan arkay hadda wiilal yar yar oo Soomaaliya oo reer magaal ismoodo oranaya dhulku waa Israa'iil Falastiin male أنبياء بني إسرائيل بانوا كجوج جرتوا فلسطينيين تاجردبان فلسطين تعجيه كي مادين من يمكن روش كي إنجليز كي يلقى صور رأي يبولن إيو باجردرن مسا ضد كمسلمين تا أو ميش الدجناب باجردرن لذلك وحيابا كولين كربوا وإن قضية صفي عنو برنا نفتنا أمبرنا ضد كنا أمبرنا كحرنو IBS مسجد الأقصى ومن كمية قوبها ومهم الإسلام والمسلمين مسجد الأقصى عوقية على لها حافظة قديمة مقالة القدس ودن كفلسطين بشير فارس جوجل بلاي أما بسال كيبل تي في كحر IBS موبايل بانكين كدبنا جوجي انستول سي ادولا سو دغتا ابكا هذا بك استعمال تليفونك أدي كده IBS بانك